وقصة إذن أهل الله يعبدان قصة وحي رمتي كدعد الدلك التالياني نين مسلم لو مركز إسلامي وأحمد لا إرهضو أي قصة كشيكي وحاو يري وحنا هابو يري سد حالات جربان هابو يري أباهي ودنتي بو يري هويو iyo inaan walaalnahay oo kaliya ayaa jooga buu yiri anigu wuxuu waxa aabahay iiga tagay maal aad u fara badan daaro baabuur wax maal oo dhan buu ilaahay iiga tagay dadka ugu qaniisan ma kamid aha meesha aan deganeen buu yiri waxa dhacay buu yiri nolosheedu waxay ahayd buu yiri inaan lacagtaas ku raaxaysto wax kastana aan qabsado wax kastoo isla adduunka waa macaana inaan helaba ay ahayd buu yiri wuxuu waxa dhacday buu yiri guriga ma kan imaado buu yiri anigoo mukhadaraad isku soo talaalay anigoo khamri soo cabay mukhadaraad ka soo dhigaan iman jiray buu yiri marka guriga imaado waxa ugu horan qaban jiray waa maxay buu yiri hooyaday baan dilay buu ayaan dilay jiray buu yiri hooyaday waan dilay jiray buu yiri oo waxba la dhac jiray buu yiri markii dabada u baxna waxaan ku jirayun nolosha aad arkaysaa ee runtii macaanka adduunka u badan ay ku jiray buu yiri laakiinse waxaan dareemi jiray buu yiri runtii gunteeda waxaan ka dareemi jiray buu yiri runtii deganaansho la'aan iyo qaraar baan ka dareemi jiray waxa dhacday buu yiri maalin kamida ayaan maqaaxi soo fadhiistay koob shaahan dalbaday jareedna waan soo qaatay anigoo koobkii shaaha cabaya ayaa ninba ay soo dul istaagay inkiiba wuxuu yiri waniyo 100 shilin oo lacagta Talyaaniga ee amaahi anigoon eegin banikii u si fiirsan hadalkiisii ayaan tan 100kiisii aan ku yiri war hoobaan ku yiri oo lacagta wax badan ma aha waxna weydiinaysaa lacagtii buu qaatay buu yiri lacagtii markuu qaatay bilima ka soo wareegtay ayuu ninkii yimi buu yiri markuu uu yimi wuxuu yiri war hooniyo 100kii aan ka qaatay waniga ku soo celiyaho markaasaan ku qoslay waxa ka hadlaysa waxaan ku ribu yiri boqolkan aan ku siiyay lacagtan 100 shilin Talyaaniga wax weyn ma aha waxa ii soo celiso oo ka fakirto oo saasaba ma baahaba marka waxaan inaad soo celiso ma baa loo baahna wuxuu ugu jawaabay buu yiri war aniga diinteeda amraysa hadaan deyn qaato ama ha yaraato ama ha badnaatee inaan soo celiyo waqtigeedana ku soo celiyo inta markuu igu yiri waxaan ku yiri oo diintaasi waatee markaas wuxuu ugu jawaabay diintaasi waa diinta islaamka marka inta markii ugu diinta islaamka weeyaan ba waxaan ugu jawaabay yiri war diintaasi naga daamaha saad sheegayso waa diin irhaab iyo dagaal ka sheekeynaysa inta markaan ku yiri wuxuu ugu jawaabay war ma sida maahe diintan islaamku waa manhaj xayaa waa nolosha adduunka tii xukumaysay ee la isku maamulayay ee loogu talagalay weeyaan cidda sida saxda u dabaqda وانا السعاده هذو قف قاطو دريميا الراحه نفسيه iyo saacadu dareemaya inta markuu yimi baa nafteedu wax ku soo badan biir markuu yiri saacada iyo raaxad helaysa ay nafteedu hal mar soo boday biir sababtoo waxaan raadinayaa biir adduunka aan haysto dhan waxaan ku furanayaa biir inaan hal mar helo iyo saacada inta markuu igu yiri ayaan ku maxaad haysataa markaas wuxuu gacanta ku haysay waraaqo islaamka ka sheekeynaya waxaan ku ribo waraaqaha balijib waraaqaha baan ka qaato wayanaayeen buu yiri markuu iga baxay baan hogar warintana way yartahay waraaqa karan baliikeen si wuxuu ugu jawaabay maalin kasta ana waraaqa kugu filan ku keenaya waxaan bilaabay buu yiri waraaqohi yaryara ay ka qaatay inaan akhriyo maalin kasta aan akhriyo wuxuu yiri markuu maalin kasta waraaqa ay keeno 10 waraaqood oo notes ah marka aan dhameeyay ayaa islaamkii ugu duxay buu yiri islaamka igalay islaamka markuu igalay baan ku yiri waan islaamaya markaas waxaan tagabiir markaskii islaamiga ahaa ee meesha ugu dhawaabaan tagabiir waan islaamiyeer markaan islaamay in gurigayga ku noqday ayaa hooyaday oo markayga hore markaan guriga soo galay aan dili jiray maxaan sameeyay buu yiri markaan guriga soo galay waan dhunkaday buu yiri dhowr cisho ka bacdi markaan guriga soo galaba hooyada waan dhunkada maalintii dambe hooyada iyad waxay ku tiri hooyo maxaa kugu dhacay awal maalin kasta guriga markaad soo gasho waad dili jirtay maantana waxaad bilowday markaad guriga soo gasho inaad dhunkato markaas waxaan ugu jawaabay hooyo diinta islaamka qaata waxa oranaya inanka dhalinyarta Ahmed markaas waxa ku tiri oo hooyo ma islaamka sida ku amray inaad dhunkato markaas hooyo islaamka ay amraya inaan ku dhunkado iyo inaan ku wanaag faraba ku sameeyo wanaagba islaamka ay amraya markaas tiri hooyo hadaba aniguna islaamkan galaya islaamku sida yahay ana waan galaya halkiiba hooyada ku islaamta biir
hooyaday markay islaamtay buu yiri wixii guriga ku dhajisnaa ee kaniisada waxa ka wada fuqiyay diintii Allah baan ku wada dhajiyay buu yiri laakiin guriga waxa joogta walaashay oo wali gaalada buu yiri waxa dhacday buu yiri kitaabkii quraanka oo Talyaani lagu turjumay ayaan soo qaatay buu yiri gurigan soo dhigtay buu yiri maalin baa guriga soo galay buu yiri waxaan arkay walaashay oo buugi akhrinaysa kitaabkii quraanka ahaa ee Talyaaniga ku turjurnaa iyadoo akhriyaysan soo galay waliba shakhsi khushuucsan oo akhriyaysa oo is ogeynba caalamka halkay joogtaba oo ku mashquulsan kitaabkan wuxuu kamaan dhaxgelinba aayar baan iska baxbiir walaashay kitaabkii marka xooga akhriday muddo yara akhridayba way islaamto anigoo kalmad u sheegin anigoo islaamka soo galbiiri ay walaashay islaamto gurigayga sidii ku wada islaamay biir maanta wuxuu waxaan rajaynayaa nolosheeda inta ka harsan oo dhan inaan diinta islaamka ugu gargaaro dabada qisadana maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa akhlaaqda wanaagsan in qofka soo islaaminayso ninkaasi ninka markuu u yimid deynta ka qaatay waa ka u soo celiyay waqtigeedii buu ugu soo celiyay waa islaamku tuina faraay deyntu ama ha yarata ama ha badnaatay inaad soo celiso ninkan isbedelka waxa ku sameeyay inta yar baa ku sameysay oo keento inuu isweydiiyo waxa diinta tilmaamaysa in qofku wixiisa loo soo celiyo ama ha yarada ama ha weynaade aakhirka waa ka islaamay waxa kale qisada inuu ka fahmeynaa islaamku sidoo u dhiirigeliyay sidoo u adkeeyay waalidka in loo samafalo oo qofkii gaalka markuu hore waalidkiisa umu wanaag fari jirin laakiin maanta markuu islaamay waa ka isbedelay ee waalidku u samafalay marka maxaa laga rabaa qof kasta inuu waalidkiisa u samafalo dabada casharkeena maanta waxaan ku soo koobaynaa oo ku soo gabagabeynayna dhacdooyinkaasna waxay tilmaamayaan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay wax kasta ku yaalaan hal kasta inuu ku jiro ay runtii qisas ay tilmaamaysaa waxay kale qisas tilmaamaysaa in akhlaaq wanaagsan muslim iyo gaalba lagu la dhaqmo ay tilmaamaysaa waxay kale qisooyinka tilmaamayaan dacwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala islaamka dadka loogu yeedhaya qof kasta waajib inay ku tahay wuxuu garanay qofka uu sheego waxay kale tilmaamaysaa qisadani waalidka in loo samafalo la hagaajiyo oo la wanaajiyo tilmaamaysaa waxa kale qisadan tilmaamaysaa sacaadada iyo raaxada intuba inay ku jiraan islaamka ay ku jiraan oo meel kale aanay ku jirin intaas ku soo gabagabeynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi